wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo ay weeliyaan safiirka Soomaaliya oo fadhiyo Masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta mudane Cabdiqani Maxamed Wariis iyo diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo ka dhacay Qaahira kalfadhiga wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa ahaa kii 149 waxaana looga hadlayay 9 ajende oo ka mid tahay warqad dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda carabta kuna saabsan heshiiska baadilka ah ee dibadda Berbera si dowladaha carabta uga qaataan mowqif midaysan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay shirka ayaa sheegay in dowladda imaaratka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madaxbanaanidda iyo midnimada umadda Soomaaliyeed inta kadibna golaha wasiirada ee jaamacadda carabta ayaa soo saaray baaq ay ku midaysan yihiin oo ah in madaxbanaanidda midnimada iyo xuduudaha Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo dowladda federaalka ay masuulka tahay kadib markii uu shirka dhamaaday ayaa waxaan waraystay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad iyo safiirka Soomaaliya ee Masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta waxa ayna iga warbixiyeen ajendayaasha shirka looga hadlay iyo mowqifka ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ajendayaasha laga hadlay waa badnaayeen ilaa waxay ahaayeen 9 ajende marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka Soomaaliya waxa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka Suudaan waxa ka mid ahaa Yemen iyo dalal badan kulanka hadda dhacay waxa noo gaar ahaa annaga oo rabnay inaanu jaamacadda carabtu ay xaqiijiso oo ay taageerto mowqifka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed iyo in aysan jiri karin sharikaad ajnabiya iyo dalal ajnabiya oo arrimaha Soomaaliya isaga tashada iyagoo aan dowladda Soomaaliyeed ka haysan ogolaansho wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad si fiican uga hadlay uga khudbeeyay oo dhigay muxuu ahay arintaas waxyeelada ay yeelan karto iyo raadka ay sameyn karto waana la qaatay waa laga dooday laba arrimood baa labadiiba ka soo baxeen mid ah in dowladaha Carabeed iyo jaamacadda carabta ay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan madaxbanaanida siyaadada midnimada umadda Soomaaliyeed iyo qaranimada waa qodob lama taabtaan ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan dibadda ka qaadatay heshiiska saddex geysoodka ee GB1 Ethiopia iyo Somalia waxayna dowladda sheegtay inuusan sax ahayn heshiisyada aan soo marin hay'adaha dastuuriga ee dowladda Soomaaliya go'aankan ay qaadatay dowladda Soomaaliya ayaa waxa bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay inay daliil u tahay sida dowladda uga go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista madaxbanaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed Wali Xasan Cabdi Muulid Muha